kulanti wacan daawada waa barteena YouTube-ka halbeega wararka qodobada wararka aanu xilligan idiin hayno waxaa kamid ah agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Salaad oo howlo shaqo u jooga dalka Itoobiya ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa dalkaasi haddaba maxay ka wada hadleen muxuu yahay qorshaha ay iska kaashanayaan sirdoonka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya sidoo kale Mahad Salaad ayaa waxa uu booqday xarunta maamulka xogaha sirdoonka ee Itoobiya maxuu ku soo arkay halkaasi warbixin gaar ah ayaan idin kula wadaagi doonaa dhanka kalena dawladda Itoobiya ayaa waxay gacanta ku dhigtay dhalinyaro gaaraya ilaa 100 ruux kuwaasi oo doonayay inay ku biiraan ururka Al-Shabaab halkee ayaa lagu qabtay sidaas lagu helay xogta kooxdan la sheegay inay doonayeen inay ku mid noqdaan dagaalamayaasha Al-Shabaab warbixin gaar ah ayaan idin kula wadaagaynaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo muuqaalka like saaraya una share gareynaya saaxiibada si uu dad badan u gaar mahadsanid ugu horeyntii haddii aynu ku bilaawno agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA Mahad Maxamed Salaad iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa howlo shaqo waxay uga ambabixeen dalka Itoobiya iyagoo halka kula kulmay dhigooda dalka Itoobiya agaasimaha hay'adda NISA Mahad Salaad ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalka Itoobiya waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen xogaha iyo sidoo kale la dagaalanka waxa reer galbeedku ay ugu yaraan argagixisada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay wadaan dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab iyaga oo kaashanaya dadka deegaanka oo sabaabulay waxaana howlgallada qaarkood qayb ka qaadanaya ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka kuwaasi oo xogaha dhanka sirdoonka ah ka taageeraya ciidamada huwanta ah ee howlgallada Al-Shabaab ka dhanka ah wada dhawaan waxa magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi uu qayb ka yahay taliye ku-xigeenka hay'adda nabad sugidda dalka Itoobiya kuwaasi oo gargaar caafimaad soo gaarsiiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya kulan gaar ah oo ay Muqdisho ku qaateen agaasimaha NISA Mahad Salaad iyo sidoo kale taliye ku-xigeenka sirdoonka Itoobiya ayaa waxa la isku afgartay in labada dal iska kaashadaan xiriirka arrimaha dhanka sirdoonka ah iyo sidoo kale isweydaarsiga xogaha kadib wada hadaladii ka dhacay magaalada Muqdisho agaasimaha hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa waxay u safreen dalka Itoobiya garoonka diyaaradaha ee Bole International waxa ku soo dhaweeyay dhigiisa dalka Itoobiya waxaana kulamo gaar ah ay ku qaateen magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya dowladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa dagaal qaraar waxa ay la gashay jabhadda TPLF ee xoogaga gobolka Tigreega kuwaasi oo diidanaa ama mucaaradsanaa hanaanka uu wax u wada ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed Cali dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay mas'uuliyiinteeda ugu sareysa ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha qaranka iyo Mahad Maxamed Salaad oo ah taliyaha NISA ayaa xilligii ololaha doorashada waxa ay si aad ah ugu dhaliili jireen madaxweynihii hore Farmaajo heshiiska uu la galay dowladda Itoobiya iyagoo markaa si aad ah u cambaareyn jiray Mahad Salaad agaasimaha NISA iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr jeer safar waxay ku tageen dalalka dibadda gaar ahaan wadamadii horaan ay ugu eedeyn jireen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin inay xiriir hoose la leeyihiin kuwaas oo kala ah Itoobiya iyo Eritrea khubarada dhanka amniga ka faalooda ayaa waxay qabaan in ujeedka safarka Mahad Salaad uu yahay mid guul weyn u soo hayn kara Soomaaliya haddii loo wajaho sida uu yahay dowladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa waxay tahay mid ka mid ah dowladaha gobolka kuwa ugu muhiimsan waxaana xuduud dheer ay la wadaagaan dalka Soomaaliya dowladda Itoobiya ayaa waxay wajahaysay culeysyo dhanka amniga ah waxaana weeraro ku ekeeyay dhulka dowlad deegaanka Soomaalida xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo dhowr jiho dagaal ah ku qaaday dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya balse markii dambe maamulka dowlad deegaanka ayaa waxay shaaciyeen inay guulo ka gaareen isla markaana ay soo afjareen xubnihii shabaab ka tirsanaa ee deegaanadaasi weerarka ku qaaday iyadoo markii dambe la arkayay ciidamo ka tirsan kuwa Liu Police oo soo gudbay xadka Soomaaliya dhanka gobolka Bakool sidoo kale dowladda Itoobiya waxa culeys dhanka ciidanka ah iyo dagaalba uga furnaa dhinaca gobolka Tigray oo ay jabhadda TPLF ka waday dagaalo qaraar balse dhawaan dowladda federaalka Itoobiya iyo jabhadda TPLF ayaa heshiis ka gaaray dagaaladii u dhaxeeyay waxaana la isku afgartay in nabad la qaato haddii Itoobiya oo xasiloon ay la heshiiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya khubarada amnigu waxay qabaan in Itoobiya ay wax badan ka caawin karto amniga dhanka xuduudaha iyadoo la aaminsan yahay in Al-Shabaab goobaha hubka iyo saanada ay ka helaan ay tahay dhanka xuduudaha dhowr jeer oo hore warar soo baxay ayaa waxay sheegayeen in Al-Shabaab ay hubka ka helaan dalka Yemen iyadoo halkaasi ay ka soo qaadaan doomo sida shixnado ganacsi una diiwaan gashan qaab ganacsi balse ganacsatadii lagu eedeeyay in Al-Shabaab ay hubka u gudbiyaan ayaa qaarkood waxa ay warbaahinta ka soo muuqdeen iyagoo arrinkaasi beeneynaya si kastaba Mahad Salaad iyo wafdigiisa ayaa waxay booqdeen xarunta maamulka xogaha sirdoonka Itoobiya ee imeeda loo soo gaabiyo waxaana halkaasi warbixino ay uga dhageysteen mas'uuliyiinta dhanka amniga iyo xogaha sirdoonka ka shaqeeya hagaag daawadayaal markana wararka xiga hadii aynu fiirino
in ka badan 100 dhalinyaro ah oo doonayay inay ka mid noqdaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu qabtay dalka Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay inay qabatay 100 dhalinyaro ah kuwaas oo ay sheegtay inay doonayeen inay ku biiraan dagaalamayaasha kooxda al-shabaab. Warkan ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa waxa uu noqday mid la yaab leh kadib markii ay soo baxday xogta ah in hal mar la qabtay 100 dhalinyaro ah kuwaasi oo la qorsheynayay in al-shabaab ay ku biiraan isla markaana Soomaaliya ay u soo tahriibaan. Dowladda federaalka ah Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen in ka badan 100 dhalinyaro ah kuwaas oo u dhashay dalka Itoobiya kuwa oo la sheegay inay doonayeen inay ku biiraan dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ee Soomaaliya. War ka soo baxay ciidamada difaaca dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay inay ciidamada sirdoonku gacanta ku dhigeen in ka badan 100 dhalinyaro ah kuwaas oo la sheegay inay doonayeen inay ka dhoofaan dalka Itoobiya iyagoo ku soo wajahnaa Soomaaliya daneynayeen inay ku biiraan kooxda al-shabaab. Ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in dhalinyaradan loogu sheekeeyay inay dalka isaga baxaan oo ay ku biiraan al-shabaab waxaana ay intaa ku dareen in kooxda al-shabaab ay isku dayaysaa inay gudaha u galaan dalka Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa horey waxay u shaacisay inay dileen dagaalyahano badan oo ka tirsan al-shabaab kuwa oo doonayay inay gudaha u galaan dalka Itoobiya kana sameystaan saldhigyo ay weerar ka abaabulaan. Xogo dhanka sirdoonka ah oo goor hore soo baxay ayaa waxay xaqiijiyeen in dagaalyahanada ururka al-shabaab ay qayb ka yihiin dagaalamayaal shisheeye kuwaasi oo qaarkood ka soo jeeda dalka Itoobiya oo ay u badan tahay qowmiyadda Oromada. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo qowmiyaddan ka soo jeeda ayaa waxa aad loogu dhaliilaa in uu ka gaabiyay in uu si dhab ah u wajaho qowmiyadda uu ka soo jeedo kuwaasi oo ugu badan beelaha dega dalka Itoobiya ee dhalinyaradoodu ay ka mid noqdaan ururka al-shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama. dhowr jeer oo hore ururka al-shabaab ayaa weeraro waxay ku ekeeyeen xuduudaha dhanka gobolka Boqol ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaas oo ay ka dhaceen dagaalo qaraar kuwaasi oo markii dambe ay guulo waaweyn ka sheegteen dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo ciidamada Liyu Police qaarkood ay ka soo talaabeen xadka dhanka gobolada Hiiraan iyo Boqol iyagoo isweydaarsi iyo wada shaqeyn dhanka amniga ah la sameeyay maamulada deegaanadaasi. Si kastaba ha ahaatee warkan ka soo baxay dowladda Itoobiya ee ku aadan inay gacanta ku dhigeen in ka badan 100 dhalinyaro ah kuwaasi oo la soo safrinayay Soomaaliya si ay ugu biiraan al-shabaab ayaa waxa uu noqonayaa war ku cusub amniga dalka Itoobiya iyadoo dhawaan dowladda Itoobiya ay heshiis la gaartay jabhadda TPLF oo dagaalo qaraar ka waday dalkaasi. wararkii ugu dambeeyay oo aad xilligan kala socoteen barteena YouTube-ka halbeega wararka xilligan waa naga inta haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir adigoo muuqaalka like saaraya isla markaana u share gareynaya saaxiibada si uu muuqaalkan dad badan u gaaro mahadsanid.